Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada maalin cusub iyo waalnas wada karaam. Waxa waaye gabadha oo nafteeda ku kalsoon iyo gabadha nafteeda ku kalsooneen maxay ku kala duwan yihiin. So kasto ama oo meel kasta ay joogto waxaa jirta gabar oo aad iyo aad u ad adag oo nafteeda ku kalsoon iyo gabdho oo waxaa jira naftooda ku kalsooneen. Laakiin haddii aan si gaar ahaaneed u fiirino gabdhahan oo hadda westiga joogaan ama galbeedka kasoo qabano, waxaa jirta gabar oo gabdho waxaa jiraan iska hawada qaadatay oo ama especially gabdhaha yaryar oo hadda soo korayaan dugsi sare dhigtaan camal. Waxaa arkaysaa gabdho oo saaxiibo yeeshteen, waxaa arkaysaa gabdho oo sidee rabaan u labisanayaan, khamro iyo daroogo iyo night clubs caadi ka dhigteen. Laakiin waxaa kaloo arkaysaa gabdho oo aad iyo aad oo maasha Allah like diintooda iyo dhaqankooda haastaan oo asturan oo iska ilaalinayaan wixii xaraam ah iyo wixii oo khalad ah. Maxaa dhacay maxaa u sabab noqon karo haddii aad maxaa is leedahay inay sababta tahay oo gabdhahaaseyto laba gabar oo maybe hal xaafad hataa lagu soo koriyay ama hal iskool isla dhigteen mid inaysan dhunto ama jid qalad ay qaadato midna is aruurisa ay toosto. Run ahaantii horta qadar Allah maa shaa facal waaye wax kastana imtixaan waaye. Laakiin markii culamada sayniska ay fiiriyeen waxa ay ku kala duwan yihiin labadaas gabar waxa waaye la dhahay xiriirka ee gabadha la leedahay aabaheeda. Gabadha xiriirka fiican leh oo aabaheeda iyo iyada xiriir fiican ay dhisteen oo ay isku qarsadaan, gabadhaas way isku kalsoon tahay. Gabadhaas sayto caadi looma dhumin karo. Gabadhaas waxay og tahay inaa guriga laga jecel yahay oo jecel uma baahna inay banaanka ka raadsato. Laakiin gabadha oo xiriirka aabaheeda la lahayn ama aydii aabaheeda is aqooninbo gabadhaas waxa waaye aabaha waxa waaye qofka ugu horeeya oo gabadha jeceyl bari lahaay oo raganimada bari lahaay oo tusi lahaay markaa hataa nin raadsanaysid ama nin damacdid nin micnaha ninka maxay tahay oo wax walbo surwaal wata nin maahane. Markii gabadha ay qabin nin qof ay xiriir adag saas oo la leedahay aan qasab maaha gabro waxaa jirto aabaheed oo dhintay ama hooyadii aabaha ay kala tageen. Laakiin gabadha ma leedahay abti, ma leedahay walaalka weyn adi nin inuu ahaado. Nin oo laakiin tuso raganimada waxa ay tahay aad iyo aad important u ah. Gabadha oo nin rag ah nafteeda ku jiro oo xiriir la leh nin rag ah waa gabar isku kalsoon waaye. Gabar oo waxa waaye way kala taqaanaa raganimada waxay tahay, xiriir way taqaanaa kalsooniyay nafteeda ku qabtaa. Tan lahayn laakiin oo lil'asaf ama ظروفta qasab qaladkeeda ma aha. Anaga ma dhihi karni qaladkaaseyto gabadha ma saarayni. Waxaa saaran nimankii oo ehelkaaseyto oo gabadhaaseyto xiriir la sameyn waayeen. Laakiin lil'asaf gabadhaaseyto waxay banaanka ka raadinaysaa jaceyl, waxay banaanka ka raadinaysaa kalsooni, waxay banaanka ka raadinaysaa wax oo validation la dhaho qof oo dhahdo u sheegta inay quruxsan tahay. Because gabdhaha markay yaryihiin waxa waaye naftooda isku kalsoona maba oga ma quruxsanahay aan marka quruxdiina iyo qofkii oo u cadday lahayd inay quruxsan tahay waxay ka raadinaysaa banaanka because guriga kama helayso. So anoo hadalka idinku soo dheereynin waxaan rabaa inaan soo jeediyo inay aad iyo aad important u tahay gabar kasto inay xiriir la lahaato aabaheed ama nin oo guriga ka mid ah walaalkeed ama abtigeed ama adeerkeeda. Mas-uuliyaddaaseyto run ahaantii gabadha ma saarna oo waxay saaran tahay ragga guriga oo waalidka u ah gabadhaaseyto. Rag yahow istoosiya ee gabdhaha familkiina ka mid ah xiriir la yeeshta si jidka qaladka u raacin ee xiriirkaaseyto banaanka uga raadinin. Waa intaas iyo waalnas wada karaam. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.